ku soo dhawaada barnaamijkeenii maahmaahda iyo sheekadeeda. Waxaan maanta ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad oo markaa aanu kaga hadli doono maahmaah iyo sheekadeed oo cusub. sidaan ognahay maahmaahyadu way tiro badan yihiin. qaar baa sheeko loo yaqaan leh, qaar baa sheeko ku habboon leh, qaar baa sheeko lahayn oo tixiyo sideeda u mutaxan ah. waxaan laakiin anagu barnaamijkan ugu talagalneen markaa aan u niri maahmaahda iyo sheekadeed waxa weeyaan maahmaah kasta oo aan sheegno waxaanu ku lifaaqi doonaayo oo aanu la sheegi doonaa sheeko maahmaahda ku habboon ayaanu la sheegi doonaa. maanta waxaan soo qaadanayaa murtida halkudhageedu yahay afkii ba ay yidhi tubti waa karaa. afkii ba ay yidhi tubti waa karaa. murtidaasaan marka hore sharxi doonaa, marka dambena sheeko murtidaa ay leedahay oo ku habboon oo lala akhrin karo ayaan markaa soo qaadan doonaa. markaan eego waxay leedahay afkii ba ay yidhi tubti waa karaa, waxaa loo jeedaa afkii dambaabay istaakfirullah iyo allow tooba iyo ilaahow waan kuu soo noqday wuu awoodaa. waa macnaha markaa maahmaahdu markii hore ay ku baxday. laakiin maahmaahda macnihii nolosha markii la soo geliyey maahmaahdu ay la dhiman weyday waxa weeyaan qof kasta oo khalad sameeya ama gafa gafkiisii wuu ka noqon karaa. gafkiisii wuu ka noqon karaa oo haddii aada khaldanto oo aada gafto gafkaagii waad ka noqon kartaayo waxaad dhihi kartaa wara halla iyo cafiyo iyo raalli ha layga ahaado iyo arrintaa way iga khaldantaye waxa weeyaan raalli ha la iga ahaado ayaad dhihi kartaa. marka waxa weeyaan marka ujeeddada saa loo leeyahayna waxa weeye in bini aadamku marka aanu iska quusanin markay dembiyo iyo khaladaadyo iyo markay wax ka dhacaan inaanu iska quusan ayaa loo baahan yahay. marka afkii ba ay yidhi oo dambaabay haddaad salaadaha tukan weydo, haddaad sakadii bixin weydo, haddaad soonkii soomi weydo, haddaad wixii ilaahay uu kaa rabay waajibaad ahaa aad ka gaabiso waad ka toobad keeni kartaayoo istaakfirullah baad ka odhan kartaayoo wixii waad sixi kartaayoo dib baad dhaqankaagii iyo cibaadadaadii iyo diintaadii u hagaajin kartaa. haddii bini aadamka aada khalad ka gashay ama xoolo ka dhacday ama dhiig ka gashay ama dhul ka dhacday ama si kale sharaftoodii iyo karaamadoodii aada ugu xadgudubtay iyadana way kuu furan tahay weliyo wari acfiyo isaamaxa oo khaladkaasaan idinka galay ha la ii dhaafo iyadana waad dhihi kartaa. marka way kuu furan tahay. sidaasaa marka waxaa loo yidhi afkii ba ay yidhi ba-ay waa dembaabay tubti waa karaana istaakfirullahna wuu awoodaa waa laga aqbalayaa wey. laakiin haddaad tidhaahdo anigu waan dembaabaye ma toobad keeni karo, anigu qofkaa waan ku khaldamayo waan ka baqayaa inaan cafi idhaahdo, weligaa allaha waxaa weeyaan niyadaadu kuu degi mayso, niyad wanaagsan heli maysid. maxaa yeeley niyadda waxa khalkhaliyana waa dembiga, waxa dejiyana waa dembi la-aanta. marka sidaa darteed baa waxaa loo baahan yahay in markaa afkii ba ay yidhiba tubti waa karaaye marka arrintaa la ogaado. markaan macnaha guud ee marka murtida ama maahmaahda aan intaa idhaahdo waxaan soo qaadanayaa sheeko arrintaas ku saabsan afkii ba ay yidhi tubti waa karaa. waxaa la yidhi beri baa waxa meel wada deganaa miyi ah, aabbe iyo wiilkiisa ayaa miyi wada deganaa. wiilka keligiibay aabbaha iyo islaanta uu qabo ay isu lahaayeen. wiilkii bay markaa waxay u dhiseen reer, gabar bay u yagleeleen u dhiseen guri. wiilku aabbu wuxuu ahaa nin taqi ah oo ilaahay ka cabsanaya oo cibaado badan oo waxa weeyaan
salaad aan ku darin soonka faralka iska daaya sunnada sooma sadaqa badan xoolihiisa sakada ka bixiya ilaahay ka baquu ahaa marka berigii dambaa waxaa la yidhi ilan adduunyo waxaa la yidhaahdaa jirtaaba siima jirta berigii dambaa abaar dhacday baa la yidhi abaara afka la isu geliyey dabada la isu geliyo isku xigxigay reerkii baa markaa xoolihii ka yaraadeen xoolihii baa aada uga yaraaday oo intii badnayd ka dhammaatay wiilkii baa markaa ugaarsato iska noqday ugaarsato ayuu iska noqday marka wiilkii wuxuu markaa ku yidhi aabbihii baa markaa wuxuu arkay wiilkii oon ku bannaanaynoo salaaddii aan tukanaynin aan soomaynin cibaadadii aan ku wanaagsanayn diintii aan kitaabkii iyo wixii qur-aankii aan baranayn markaasuu ku wacdiyo wuxuu yidhi aabbe anaa ku dhalay waxaa uu rabaa aniguna waddadayda inaad raacdaan rabaaye salaada tuko oo soon oo qur-aanka aqri oo dadaal oo cibaadayso hase yeeshee wiilkii kor iyo hoos si walba hadduu yeelay waa odaygiiye si walba hadduu yeelay wiilkii arrintii uu ku kari waayey berigii dambe uu yidhi haddaba hadday saa tahay taladayda aada diidday iga guur way ku kala guureen wuxuu yidhi aabbo aniga ma daynay ugaarsiga salaad maalintii oo dhanna waan mashquulsanahay hawsha way igu dhib wiilkii odayga sidii bay ku kala guureen wiilkii xaaskiisii buu gacanta qabsaday caruurna umay lahayne meel kaloo kayn ah oo ugaadha ku badan ayuu markaa halkaasu yuu aaday oo la degay baa la yidhi markuu halkii la degay baa waxaa la yidhi reerkiisi iskala degay ugaartiisii u iska watay odaygii islaantii meesha isaga hareeno xoolihii intii dambe abaartii baa sii socota oo ka dhammaatay berigii dambe ilaa waa beer wax dhalay odaygii wuxuu yidhi war wiilka berigii aada cayrisay bal maad ka wardoontid oo bal meeshii uu ku dambeeyey waa loo tilmaamay ilaa waa lisdheg yaqaan warka waa laiska hayaaye meeshii uu yaallay wuu garanaya halkii buu markaa ugu tego habeenkii dambe ayuu markaa u soo hoyday marka ilaa wiilku xoolo ma hayste ugaar unbuu ku nool yahay maalintaa wuxuu soo ugaartay baa la yidhi jugley shimbir la yidhaahdo oo waxa weeyaan fiinta ka weyn goroyadana ka yar oo bannaanada dhulkeenna caan ku ah oo goroyo yar un ah adigu aada u yara kobacsan oo ayuu qoor dheer ayuu maalintaa soo ugaartay baa la yidhi jugley marka hilibkeedii buu habeenkii si wanaagsan intii odaygii ugu kariyey ayuu ka duurduuriyey oo ka dherjiyey baa la yidhi marka odaygii wiilka xaalkiisuu fiiriyey reerkii xaalkiisu uu kasoo tegayna dib buu u maliilico wuu fakeray habeenkii marka odaygii mar kaliyuu markaa isbedelay markuu habeenkii si fiican cashadii loo siiyey wiilkiina uu yidhi aabbe meesha ma iskaga soo tagtaan ayuu odaygii markaa wuxuu yidhi aabbe buu yidhi anigu go-aan baan gaaray odaygii baa odhanaya horta reerkan adigu aada halkan dejisay waa days buu yidhi halka reerkan waa la daynayaa halkiisa ha deganaado maxaa yeele meeshan ugaartaa ku badan reerka halkaa ahaayoo aniga aan ka soo tegey oo hooyada ay joogtayna waa soo rarid buu yidhi oo halkanaa laisugu keenayaa surdhabadley oo ubba ahoo odayga uu watay iyo masallihii uu salaada ku tukanayana waa tuuris buu yidhi salaad dambe ma jirta buu yidhi jugleyna waa doonis buu yidhi jugley hilib macaanna tii xalay aada siisayna waa doonis oo anigaa ku raacayo waan isla doonaynaa buu yidhi taasna waa la soo dabayaa buu yidhi ugaar wixii kale la helo halkaasaan marka shaqadii ka bilaabaynaa buu yidhi wiilkiisi baa marka aada u qoslayoo aabbihii siduu hal mar arrintii uu ugu soo raacay buu aada ugu farxo markaa reerkii kaleu soo raro labadii reer baa meel la isu geeyo wadaadkii oo ugaaranayo oo wiilkiisiina la boodayo oo ugaar badan maalintiiba soo dilanayo oo salaaddii iska daayey oo wixii bay dadkii maqleen ninkuna culumuu ahaa markaasay markii dambe usoo direen ergo waxay ku yidhaahdeen war khaatimada waxaa lagu ducaystaa in khayr ilaahay kugu khatime khaatimo xumada iska ilaali ha noqon ninkii boqolka soomay ee baktiga ku afuray hebelow odaygii bay la hadlayaan waxay yidhaahdaan ilaahay baa risaqa bixiye war haddaad xitaa kolley ugaaranaysa cibaadadaadii iyo ubbadaadii aad tuurtay soo qaado ubbaweystii aad tuurtay qulucdii soo qaado oo weysadaadii iyo salaadaadii hayso oo nin fiican oo deegaanka fiican oo aamin oo ilaahay yaqaano cilmi laga qaataad ahayde
waxaa way kitaaba xoor ha noqoni markii waanadii lagu celceliyey lawaata la yiri dhago laab u daloolay iyo kuwa layr u daloolaa jire odaygii dhago laab u daloolaa ilaahay siiye waanadii dadkii wuu qaatay markaa ayuu tooba yiri oo wiilkiisiina isagoo la degan uu yiri marka si aayar adoon ku qaylinayn u bedel salaadiisii iyo hawshiisina uu ku soo noqday marka bal eeg afkii ba ay yiri tubti waa karaa haddaad dambaabto dembigii waad ka soo noqon kartaa laakiin weligaa ha is oranin haddaad dambaabto dembigii kama soo noqon kartid ha is oranin maxaa yeele ilaahayna wuu saamixid badan yaho waa dembi dhaafe bini aadamkuna haddaad qof dembi ka gashoo tiraa wari cafi intaad foolka fool ugu timaado isagana bini aadamka 90% say u badan yihiin waxa weeyaan way ku cafinay ku leeyihiin ku saamaxayaan marka waxa wanaagsan weligaa ha rajo dhigin weligaa ha ka quusan dembi walba oo aad gasho ilaahay wuu dhaafi karaa maxaa yeelay afkii ba ay yiriba tubti waa karaaye waxaan rabnaa waxyaabo badan oo Soomaalidu hadda ay kala tabanayso oo dhiig leh oo dhaqan leh oo xoolo leh oo wax walba leh oo ay kala haysato oo ku kala dhex jira oo iska og yihiin inay marka iska xalaashadaan oo midba midka kale intuu u tago uu yiraahdo wari cafi iyo xoolahaagii waa kuwan iyo gacanta aynu saaro in la yiraahdo ayaa aad iyo aad u wanaagsan maxaa yeelay afkii ba ay yiriba tubti waa karaa daawadayaal barnaamijkeeniina halka ay noo joogo